dugsiyada Darul Ulum Primary School. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kusoo dhawaada dugsiga Darul Ulum Primary School. Waa anigoo ah Macallin Hiba Cabdilaahi Maxamed, macallimadiini Soomaaliga. Arday la soo baxa buuga fasalka 6 ee Soomaaliga. Maanta waxaan dhigan doonaa cutubkeeni, waxaan oo socdo cutubkeeni 3aad. Waxaan ka dhiganaynaa casharkii 3aad. Gabayga aynu dhiganaynaa waxa weeyaan gabayga la yiraahdo Kolbaheer. gabaygan waxaa tiriyay oo curiyay Awaan Cige aw Cali oo kamid ahaa abwaanada ugu caansan geyiga Soomaaliyeed. gabaygan waxa uu kaga warramayaa marxaladaha uu maro qofka bini'aadamkii ka soo bilow xilliga caloolgalka ilaa ay qofku intuu gaboobayo. haddaynu line u akhrino casharka wuxuu oranayaa sidan. waa gabaygii 3aad ee cutubkeeni 3aad. gabaygan waxa curiyay Awaan Cige aw Cali waxaanu kaga warramayaa marxaladaha kala gedisan ee uu abuurka dadku maro laga bilaabo caloolgalka, dhalashada, caruurnimada, dhalinyarnimada, guurka ilaa inta uu ka gaboobayo qofku. sidoo kale abwaanku waxa uu inta ugu dambeysay ee gabaygiisa uu Eebbe kaga baryayaa in Eebbe u naxariisto marka uu geeriyoodo. wuxuu yiri markii hore candhuuf baan ahaa caano oo kale, markii xigay casaan dhiig oo cadiye jiir yeeshay, markii xigay calooshii haween baan ku cararayay, markii xigay caways baan dhasho cigala ii bixiyay, markii xigay culays hooyaday cududahan daashay, markii xigay cuudkan cisho caawiye ahaaday, markii xigay ciyaar baan togoon cayn walba u booday, markii xigay cawaa la ii dhiso cawda kula loolay, markii xigay caruur dhowraba culuq la ii siiyay, markii xigay aqlaan yeeshayo Eebbe ka cabsooday, imikana aan ku soo racliyay, markii xigay aqlaa ii kordho Eebbe ka cabsooday, imikana markii xigay cawaa la ii dhisoon cawda kula loolay, markii xigay caruur dhowraba culuq la ii siiyay, markii xigay aqlaa ii kordho Eebbe ka cabsooday, imikana ciraan yeeshayo cuumir baan ahaye, cadaabtaada iga hay allow caadil baa tahay. arday imkana waxaynu dib ugu noqonaynaa in meerisyada uu gabaygani ka kooban yahay aynu tuduc u micnayno. haddaynu soo bilowno arday markii hore candhuuf baan ahaa caano oo kale buu abwaanku yidhi. marxaladani waa marxaladda halka ugu horreysay abuurka aadamigu uu ka bilaamayo oo siduu Eebbe quraanka inoogu sheegay marka ugu horreysay waxaynu ka imanay nudfa candhuuf baynu ka imanay, markii xigay casaan dhiig oo cadiye jiir yeeshay. marxaladana waa marxaladii labaad siduu Eebbe quraanka inoogu sheegay in nudfadii calaqa loo bedelo waslad jiiro loo bedelo hiliba, markii xigay calooshii haween baan dhex cararayay. marxaladana waxa weeyaan inta uu caloosha aadamigu ku jiro sidka bini'aadamkuna waxa weeyaan 9 bilood. marka wuxuu kaga warramayaa 9kii bilood ee uurka hooyadii uu ku noolaa abwaanku. markii xigay caways baan dhasho cigala ii bixiyay, markana waa waqtigii dhalashadiisa caways buu dhashay cigana waa loo bixiyay. markii xigay culays hooyaday cududahan daashay. marxaladana waxa weeyaan intaanu ilmuhu socodka aanu adkaynin oo isku filaanin waa marxaladda ay hooyadu badanka ilmaha ay haynayso ee uu ku tiirsan yahay inta ugu badan noloshiisa, mar ay dhabar ku qaado, mar ay gamcaha ku siday, mar ay sinta saarataba. marxaladaas ka warramaysaa tuducaasina. markii xigay cuudkan cisho caawiye ahaaday. marxaladana waxa weeyaan markuu ilmihii kobcay oo uu noqday ilmo munaafaca sameynaya oo reerkii xaqiisa qaybtiisa noloshii doorkii uu kala qaadanaya oo waxa weeyaan noloshii miyigana xilligan oo kale carruurta waxa loo diri jiray maqalaha inay ilaaliyaan, kuwa magaalkana adeega ayaynu diranaa hooyo waxa soo qabo hooyo waxa soo dhiban ilaahna. markii xigay ciyaar baan tagoon cayn walba u booday. marxaladana waxa weeyaan marxaladii dhalinyarnimada oo marka noloshii miyiga ay dib ugu noqono xilligaas oo kale dhalinyartu waxay sameyn jireen markay noloshoodii howlad maalmeedka ay soo qabtaan ay soo dhameystaan waxay isku maaweelin jireen xilliga cawayska inay ciyaaro dhaqameed ay ciyaaraan. marka waxa weeyaan marxaladaasna waa dhalinyarnimadii. markii xigay cawaa la ii dhisoon cawda kula loolay. marxaladana waxa weeyaan waa marxaladii guurka. markii xigay caruur dhowraba culuq la ii siiyay. markana wuxuu maxay abwaanku ardayga uu kaga warramayaa tuducaas inuu aabbo noqday ilaahayna u badsiiyay. markii xigay aqlaa ii kordho Eebbe ka cabsooday. marxaladana waxa weeyaan markuu soo waayeelay daadu soo galaysay
waxaanu inoo sheegay in aqligii u hordhay uu eebana ka cabsooday tudaca ku xiga waxa weeyaan imikana ciraan yeeshayo cumar baan ahay waxa weeyaan markii uu da noqday oo hawl gaboobay uu ciraystay ciro iyo cumar waa laba kalmadood isku macno ah labaduba cadeynaya intii midabkooda isbedeleen oo uu ciro yeeshay ugu dambeyntiina waxa uu abwaanku ku gabagabeeyay cadaabkaaga iga hay Allah caadil baa tahay ilaahay buu ka bariyay uu ilaahay u naxariisto markuu geeriyoodo oo cadaabkiisa ka hayo gabayga sharaxiisa intaasna ardaydu ku dhameynay waxaanu galeynaa sharaxa erayada ku jira gabayga ayaanu sharaxaynaa cuud waxa weeyaan xoolo micnahoodu quluq waa deeq alla bixiyo oo aanu qof kale alla mooyaane bilaadan bixin karin oo ubadka ah quluq waa deeq weeyaan erayga saddexaad ku jiraan waxa weeyaan cumirna waxa weeyaan qofku markuu da noqdo ee uu ciro yeesho ayaa cumir la yiraahdaa casharkii intaas uu inoogu eegyahay haddana waxaan idin yeedhin doonaa su'aalihii ama layliskii iyo weydiimihii ku jiray casharkeena su'aasha koobaad kuma ayaa tiriyay gabaygan waa su'aasha koobaad kuma ayaa tiriyay gabaygan su'aasha labaad haddii aan u gudbo arday waxa sameeynaysan su'aasha markaan yeeriyo waad qoranaysaan afkaadii ka yeerinaya waad qoranaysaan ana waa idin kaadinaya waa idin joogsanaya si aad u qorataan su'aashii koobaad baan imka sheegnay kuma ayaa tiriyay gabaygan waad qorateen baan filayaa su'aasha labaad baan u gudbayaa maxaa uu gabaygani ka warramayaa halkaasina waxa weeyaan su'aashii saddexaad imkana waxaan su'aashii labaad bay taasi ahayd afwan imkana waxa weeyaan su'aashii saddexaad baynu u gudbaynaa labada su'aalood hore inaad qorateen baan rajaynaya tan saddexaadna waxay ku oranaysaa sabab ma ayaa hal abuurka loogu bixiyay cige calaamad su'aal kasta oo yiri xagga dambe calaamad su'aal ka raacaya sabab ma ayaa abwaanka loogu bixiyay cige sababtii loogu bixiyay magaciigaad sheegisaan su'aasha saddexaad baan halka kaga imanay tii afraad baan u gudbay arday abwaanku mawaayeel buu ahaa markii uu gabaygan curinayay waa laba su'aalood saaran weeyaan abwaanku mawaayeel buu ahaa markii uu gabaygan curinayay waa su'aasha koobaad talabaad saarana waxa weeyaan sheeg tudaca cadeynaya taa haddaad ha ku jawaabtid waxaad ii sheegaysaa tudaca cadeynaya inuu abwaanku waayeel ahaa markii uu gabaygan curinayay laba su'aalood saaran su'aasha afraad xaggaas in kaga gudbaynaa waxaan u gudbaynaa imkana su'aasha shanaad waxay ku oranaysaa qor meeris muujinaya in hal abuurku xoolaha nool raaci jiray qor meeris cadeynaya ama sheegaya in hal abuurku uu xoolaha nool raaci jiray calaamad su'aalintaas ay iga dhan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga soo jawaabi doontaan casharkeena maanta intaas uu ku eegyahay waxaan idinka tagayaa insha Allah inagoo nabad qabnayno Ilaahay isku keen soo celiyo awalan marka labaadna waxaan idin sheegayaa fariintii caafimaad ah faraxasha guryaha jooga meelaha lagu badan yahayna insha Allah ka taga oo ku badnaanina tukada oo shanta faralba ooga insha Allah ee baweynana isku xira assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh